بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ku soo booqanay gurigiisa boqor cirmadow boqor cawil xasan boqorka waan ku salaaminaa ku soo dhawow shabakadeeda waan dhawahay cabdi walaal boqor maanta waxaan doonaynaa wax ka weydiino maanta ay ku beegan tahay waa maalintii mujaahid lixle geeriyooday ilaahay u naxariisto maalin aad u culus bay ku ahayd maalintaasi bulshada reer Somaliland maxaad aad halkan uga diri lahayd bulshada Somaliland ama saad xasuusin lahayd waa maasantay walaal marka hore ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Somaliland waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su-aashaad weydiisay haddaan u soo noqdo maalintaasi waxay ahayd maalin madow bay innaga inoo ahayd maalintii mujaahid lixle dhintay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay janno fardowso geliyo dambigiisa kii waalidiintii baa ilaahay dhaafo isaga iyo intii mujaahidiinta ee la go-day ee dalka dhiigga usoo shubtay ee xorriyaddeenu ku noolayna gaadhsiisay baa allaha u naxariisto waxaan jecelahay intiina fadhidiyo intiina daawan doontaaba inaad faatixada u martaan آمين بالله فاتحنا والله وضم مريضنا إن شاء الله بقول واحد شرتا إن حالات الصومال ما أنت أكيد شرتا حالات آدو آدك أو آد مودستي إنك لا قبنان إيو كلا قيب سنافر بدنا يسوي هذه واحد شرتا إن متانها أكيد دواقين إن أنا عشور تبحين دورتنا ما يرعصب الله يرهدو على عبدي علمي أريكا إستجا محاد كأوران لهيد محاد سكوباقي لهيد محاد سكولا تلين لهيد marka hore cabdi waad mahadsan tahay maanta maalin madow baynu ku jiraa waayo qarannimadii laga shaqaynayay raggaas u dhintay aynu kidmooyinka tacsiyadeynaynay ay u dhinteen ee loo soo halgamay ee dhibkadugeed loo soo maray ee intii oo marxadood ee kala duwaneed loo soo maray ee dagaal sokeeye gudaheena iska qabsay waynu gaarnay wixii aynu doonaynay dalku meel wanaagsan buu marayay maanta waxaad moodaa waqtigaa inay dib ugu noqoto xoreyn dambe u baahan yahay dalku maanta xoreyn dambe inuu u baahan yahay maanta ninka lagu yidhaahdo haddaan taariikhda dib ugu noqdo ninka lagu yidhaahdo riyaale magacyaha jiray waa nin Somaliland dhaba waa nin ka mudan reer Somaliland inay dad iyo dumar ma odhan karo dee hal oo la isu taago ilaahay baa laabi laakiin waa nin ka mudan sharaf iyo cisi allaha barakeeyo iyo karaamo markuu arkay in sheegaantu isu soo alaabaysatay oo waxay saaqrimanayada abaabushay وأركيد دول كانوا قيل قليو أيوه حضور بده وضني أسوق نبأ أسوق قرني من السومال لا لا ليه أسوق ديمقراطية المقاضنين من الجهة دي راعية هذه ديمقراطية جدو أيوه برتي حلكي اللي جاي أو يروى السومال لا وطاوام ميت حدوده هذو السجين تاسين تقول يشيل تعالوا ويماتوا تيلا ما هي مات رجلوا هذو السوق برجع كوبابي رجع كردي إن لبر هرمية شليه رجع كردي إنه كرسي يوم أيوة عشان يوم سيد محمد سياد برو دولة دكتاتور نمدي محمد سياد برو يضرب عبد الله كردي أيوة شنو كهاكو عيار يبرو هل كيبو مريم أنت يضو كونا والبعيد متشوغان أو مدي السومال لحد ما أولي وقراش ما أولي ومتعلق ولا بحي وعلى الله السومال لها بالبعض هديتهاي كتبيس هدي متعلقتهاي ومدي لهاي بوكبحضة ولي حدوني إنه حكمه ميانو ديمقراطية لو قلت لي بيا سوى لقى هلاي لوسي شرفت إذا أنا يجين ميانو إن الحصة يجين أنا وحقولت له يعني كل واحد مسبح عبدي وكان مات ولي شرف مخصوصنا ما أنت هدات له أنا وحلكي وأخوف الشمي شرف سمال لأنه عدة دونتان صوح كنت أقول لي بتحلكي وان دقيقة وصلت ديمقراطية تاي هل كان وحلا إسكندقة ديمقراطية ديمقراطية وحلا إسكندقة قف وان كلمة ميركي يجي أيو حلك اللوليكا يا حلك اللوليكا بغضو عيكا ملقاها قدام شرفتها قدام علىها قدام يا قرا كان يومطن كامي شرف سير يالو يالله سير يالو كره إنا دكتابه إسكندق ما كل ولي شرف أكو عليه بس حسنا ذي تسمع هذا الشيء برا آخر كنا قبل حكومتي قبل ما قبل السوق في السنة تقول لك حكومتي ساسا بلا دولسة ما يركا وقتي وصون نقطة ويجيسي ما يركا متانو كل واقع عدالة دون كل واقع عدالة دون كل واقع عدالة دون كل واقع ما أقول كرو متانو قوله ومرو نرجع سمال عليه وين محسين على عمر عمي
waxaan leeyahay hambalyo bartaa ka haya cashuurtana u dhiiba wixii somaliland daneeya ee ha ahaata beelaha somaliland oo dhan ah waxaan leeyahay halkaa ka taageera taa doonaysaan baa imanaysa kursiga waa loo siman yahay qaranka madaxdiisa waa loo siman yahay ilaa ka inta cadaalad helaysaan ka cadaaladda wada helaysaan halkaa ka haya waa cashuura bixsanajadii ninkaa ku daba faylama ka cusubaa doonateen kaasaanu hambalyeynayna iyo ciidamada caare ee ka dhiidhiyey xumaan taliska ayaanu hambalyeynayna oo lena caaro jiro joog iyo wixii diidanba iyo gamaal aad iyo aad baad boqor u mahadsan tahay cali cabdi cilmi oo aad iyo aad ugu boorisay hawshaana aad ugu hambalyeysay iyo maayirnimada loogu doortay kaaga abdo ka dhagale waxaa jira waxaan doonaa saddex xusbaqaran saddexda xusbaqaran waxaa loo doontay markuu mid saasoo kale khadka uga dhaco ee ummadii abuse kale waa iska abuse marka kursiga kuu dida waa halka siiyo marka kursiga doonaya waa halka siiyo ee reer meeshii qabsa waa abuse ee saasoo abuse kale saddexda xusbaqaran waxaa loo doortay labada kale inay mucaaradaan waan xusbigii wadani waxaan kula talinaynaa inay mucaarado dhaba sameeyaan oo uu hadlo ninka xusbiga way war afka miyaa la haystaa war maxaa mutaxaafid baa waa inuu hadlaa haddaanu nahay odayaashii qaranka ee dalka iyo dadka ku dhisnaayeen waa inuu hadlaa intaanay dagaal gaadhin xusbi mucaaradka saxaadadka oo qaranku markaas u saxmaya waa inay hadlaan mucaaradnimadooda muujiyaan ciro waxaanu leenaha mucaaradnimada toosu muuji mucaarad baa tahay xusbi xaafid ma tiidee war miya nin mucaarada waxaynu haysanay maxamed axmed maxamuud siyaay magacaad laga abtigay yaynu haysanay waayo mucaaradnimada dhab buu muujiya taarikhda gubi haysan sida ummadaas u dhacdo reer yurubeen maanta la joognaa haadhade iyo cabdi u dhaqmayey oo milgeedi raacayo waxaana kusoo dhacsaday tiyo kale loo baahanyay intaanay dagaal gaalo xusbi qarada u samaysanay inay dhalacaan dowladda saxaan inay wax walba banaanka dhigaan inay miidiya u sheegaan inay sheem dareemaan dareeto waan ummadii cuqaashay waxgaradka iyo waay aragga waxaan u sheegayaa iyo golaa guurtiya dalku xukumo inay ninkan la shiraan yihahdaa qoyar kursiga iskaga teg aad iyo aad baad u mahadsan tahay wayna maqli doonaan dhaliishaas iyo cambaareynta aad usoo jeedisay xisbiyada mucaaradka labada xisbi mucaarad waxaa jirtaa bariga in waxyaalo badan laga soo sheegayo ay ka mid tahay deegaanada somaliland ka tirsan in ay yimaadaan ciidamada puntland qaarkoodna la magacaaboba marka tuulooyinkaas iyo dhulkaa ay isku fidinayaan ciidamada puntland amase dee dowlad deegaankaasi puntland maxaad ka odhan lahayd dhaliishaas ayaad saari lahayd wallaahi waxa weeyaan baaba iyo deeqa baaba inoo soo hediyey waayo qaran xuduudala baynu ahayn waxaana sabab waa xukuumadda haya muuse biixi cabdi waar puntland baa qabsatay gobolladeeni haysata oo u magacaabanaysa waar idin miye waar mee qarankii midaysta waar mee ciidankii qaranku waar mee toba meel bay fadhiyaan waxay ka lagu wada dhiidhiyeen cadaadarada meesha ka socota waar idin miye waar maanta waa in la iska qabtaa golaha guurtida goostambeedkii dalka way mise hadda igana way jeegaanaysan yihiin mise way jeegaanaysan yihin waar waa goostambeedkii dalka waar waa inay hadlaan waar waa in ninkan laga saaraa kursiga waar waa in xusbi mucaaradnimadoodii dhabtaa ku dhaqaaqaan waar waa in caqaasha iyo waxgaradka iyo waayeelku kacaan waar maxaa sugaysaan marba xabadi meel walba ka dhacdo guryihiina qabsataa baad sugaysaan waar daarahan tobanka soo dhadhamanay dee ma dumin karo waar way dumaysaana waa dhab way dumaysaa waar sharaf ku tegi maayo waa inaad kacdaan dhammaantiin waa inaad kacdaan muuse biixi cabdi blace inaad dadka iyo ummadda utu iskaga teg kursiga waa fashilanta waar ma waxaad garan weysa inta riyaal kaga tegay riyaal markuu arkay in maxaa loo xasmeeyaa buu sharaf kaga tegay mamtaasaad garan kari weyday waar dalkii dadka u danee iskaga teg intaan xabaddu guriga kugu iman aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan halkan anaguna tacsida aad markii ugu horreysa aynu ku bilaabanay lixle aanu duco uga diraynaa leenahay faatixada loo wada maro xusuus labaad bay naga tahay boqor aad iyo aad baad umahadsan tahay waynoo kulankeena labaad iyo sarag dambe xisale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.